السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دبال صاحبة قيمة هي قدرت مدن ku xiran janaalkan walaalaha family waa markale muuqaal cusub oo idinkaga diyaarinay musalsalka walaalaha maxaa cusub sidoo kale maxaa ku soo kordhay hadaba musalsalka xalqadiisa u dambeysay waxay ahayd xalqad aad iyo aad u xiiso badan in ka soo rajeynayo in xalqadii u dambeysay faaleeda aad ka soo daawateen janaalka Page ama Faala Media marka muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa macluumaadadii u dambeeyay ee musalsalka walaalaha xalqada soo socota iyo macluumaadka kale oo waaweyn ee daawadada markii soo booqatay janaalkan subscribe inoo saar sidoo kale muuqaalka like inoo saar waa mahadsantahay taa ka bacdiyo soo dhawow waa tahay hadaba dhacdada u horeysa in muuqaalkan uga hadlayno waxa weeye ama hadal haynta aadka loo hadalhayo waxa weeye haddii ay xasuusteen xalqadii u dambeysay waxaan filay xalqadaasi 75 miyaad mise 74 adii xalqadii u dambeysay dabcan waxaan aragnay macallimadda markii klaaska lagu jiray ama fasalka markii lagu jiray waxay soo qaadatay sheeko ay soo qaadatay oo riwaayada kor dhacday ay soo qaadatay sheekada waxay tiri waxaan rabaa in la jiro marka duruukaya isla markiiba dhahay macallin badalka ama yacni jilaaga ama atooraha yacni aniga ayaa noqonaya ayuu dhahay duruuk markii u horeysay hadaba duruuk ha noqdo ma xumee uljaan ayaa u sheegay waxa uu ku dhahay dabcan qofka hogaaminaya arinkaas ama sheekadaasi ama jiraya ugu dambeyntii waa u dhintay ay ahayd sheekadaas ninkaasina waa u dhintay ninka magaciisa iga baxsanay marka duruukna uu ka laabtay marka waxa macluumaadadu ay daabacayaan duruuk atakul dhamaadka musalsalka waxa uu ku dambeyn doonaa mid dhintay runtii aad ayuu hadalkaasi loola yaabay saxaafadda soo bandhigtay waa laga daba tagay balse arinkii waa uu sii weynaaday xitaa mar waxa lagu dhawaaday in yacni saa ay noqon doonto sheekadu oo musalsalka marka uu dhamaanayo yarkan duruuko uu sidaas ku dhimanayo maadaama uu isagii adii waxyaalo badan ay ka dhaxeeyaan in duruuk aabihii uu dilay Aasiya hooyadeed aabaheed adii waxyaalo badan marka macluumaadkaas oo midda koobaad waxaan jeclaysan in idin wadaago arinta kale iyaduna hadal haynta aadka u badan ee la hadalhayo waxa weeye dabcan xalqad soo socota gabadhii Suusi ahayd waxay isku day doontaa in ay istisho haddii xustiin muuqaalka horeeyay ka sii horeeyay waxaan uga hadlaynay istilka Suusi iyo Tolga asagoo caadi buu noqdo wadiga arkay xalqad u dambeysay xaaladiisu way hagaagtay kadib markii gabadha yareeda qalbiga loo saaray ama wadnaha loo saaray ay u timid kadib xaaladiisu caadi bay noqotay laakiin Suusi caadi ma isla gooska dhexdiisa waxaan ku aragnay Suusi oo rabta Cumar inay wax walba u sheegto balse ma artay sidii caadada dhahayso baan ama macnaheedu ay tahay aniga iyadoo la kulli qof baa ka soo dhaxgali doona inta iga qora ama waxba ayna u sheegi doontaa ama qof baa ka soo dhaxgali doona arinkaas khalkhalin doona Cumar wuxuu ku dhahay Suusi maxaad iga qarinaysaa gooska dhexdiisa ayuu ku dhahay maxaad iga qarinaysaa marka waxaa lasoo jiray cod yar oo leedahay aniga sida iyadoo waramaysa marka kulli qof unba arinkaasi joojin doona sidoo kale gooska xalqada nagu soo socota runtii iyo xalqadii u dambeysay runtii wax ma la kulanay waxa weeye Cumar mar waliba uu nolol fiican galo wax qasamo waayo yacni wax ugu talagaleen yacni waxaan dhihi lahaa intaan kadib kababaliska naga daaya maadaama yacni waxa xadkiiba dhaafiseen masaakiintan mar waliba wax fiican helo caqabad bama waayaan baa leedihiin yacni waxaana suurtagal inkastoo suurtagal noqon karto balse haddana waxaana suurtagal ahayn filim hindi buu sheekadii u socotaa yacni had waxaa lagu leeyahay taajiri noqdeen isla markiiba guriga laga soo bariyay tusaale ahaan Cumar iyo yacni guri cusub ay u guuriyeen sawada ognahayba gurigaas xitaa odaygii waa u saxeexay oo xitaa odayga xitaa maalkiisa qayb u saxeexay saxeexaasi waa sida uu u saxeexay sida uu kaga laabto way adag tahay saxeexaas waa sida uu saxeexay sidoo kale waxaa laga yaabaa in Axmed Ilmaas uu guriga ka soo buriyo ama sidaasi mar dambe faqiirnimadii ay ku laabtaan xalqad soo socotana waxaa laga yaabaa sidoo kale in ay taajirnimada sidaasi ku galaan oo faqriga sidaasi kaga tagaan marka insha Allah khayr un bay noqon doontaa in kasoo xalqada soo socda ay xiiso yeelan doonaan sidoo kale arrinka xiisaha badan waxa weeye ayla in ay dareensiisay nafhaad khiyaanada dhabta ah waxay tahay oo cod ay ka duubtay codkaasna ay ilaa hadda ugu hanjabayso way Suusan u dirtay talo Suusan may u dirtay oo Suusan may aragtay inkastoo ay u dirtay bada codka Suusan may aragtay muhiimadu waxa laga yaabaa inuu caakif intuu baxo uu codkaasi Suusan oo arag ay u dhileedo waxa sidoo kale laga yaabaa Suusan inay codkaasi aragto isla markaana caakif iyo nabhadna si raaxayso ugu laabtaan bada yacni adii nabhadna walba ku qabtaa caakifna abaal buu ku qabaa
inkastoo qoftii gunuul ahayd ay ka baskiisi yaraa wax ku dhex iibinaya dee ay shanguul wax ku dhex iibinayso managerka ka ahaa inkastoo shanguul jajabisay sidoo kale goonuul weyna maca salaamayn doontaa afraa ayay noqotay waxaan filayaa inay la noolaan doonto uldaan iyo dadkan kale inay la noolaan doonto ayaan filayaa balse goonuul wax nooga haray yacni joogeedii meeshaan wax joogitaan la dhaho meesha umaba yaallo ama ayaday gabadheedu way tagayaan ama ayada ayaa si raaxal u baxaysa inkastoo ila tahay gabadheedu in ay joogi doonto balse ilaa maalin hore waa la hadal hayay bixitaanka ay ka baxayso musalsalka sidoo kale samad ognahay xalqadii u dambeysay waxaa la xiray dabcan waxaa la xiray Aasiya iyo Duruug waxaana lagu xiray يعني إن أي ألعاب شرع الدراء دبعا دجينيا أو كإيبينيا ميركلاد وحن فيها دروجي وحلمد إنها تهي هذه ألعاب شرع الدراء هي هيد وذاتي يعني كتر دروك ليس ما هي ستان وذاتي أي هم تلي بكل لعبة دونا هذا بس يصبح دونا كل وحيلته إنه عاكف سيدان إنه صبح دونا oo goos kuwaaban aragnay bade Umar baa soo booqday ahayd misiyada Umar la joogtay adigu way soo bixi doonaan Aasiya Duruug xalqa soo socotay insha Allah warjeynayna inay soo baxaan saas ay ku soo baxayaan waxay noqotay saar bixaaladiisa horta runtii aad muhiim ka soo Axmed Ilmaaz laakiin waa wiilkayga aan xaaladda xun tahay balse goos dhaxaysan uga jeedno Umar intii dambe caadi buu iska ahaa saar bin xaaladiisa wanaagsanaa doonta arrinka dhibaatada waxay tahay Umar talu taajirnimada uu gali doonaa mise sidaas ayuu kaga baxaya hadaba inta hadii aan kaga nimaan musalsalka walaalaha musalsalada kale maxaa ka cusub runtii sanadkani wuxuu noqon doonaa sanad aad u weyn sanad wuxuu noqon doonaa aan daawan doono muhanad bay Soomaali u taqaantaa yarkaasi ama Kifan Tantalutug iyo Sarina Sarikaya oo musalsal runtii la yaabi doono soo TV ka soo socda sidoo kale gabadha caanka iyaduna waa xasuustaa hadda sawirka xitaa halkan nima saaray kari iyaguna kuwaasina musalsal bay soo wadaan Fox TV xitaa musalsal soo wadaa ATV musalsal waxaa jira Boosdaagi Cusman yani managerka uu soo saaro xalaqadiisii koobaad oo kala qarxay oo total ku 8 gaaray kul wad aragtanaya filaya marka waxyaalo badan ayaa sanadkan soo bixi doona insha Allah anagana waa soo laabanay sanad cusub waaye musalsala hit ayaa soo bixi doona sanadkani musalsalka walaalahana waxaan u rajaynaynaa isagana guul iyo season 3 baad ku jiraa sax iyo seasonka afraad insha Allah si guul ku soo dhamaada asagana waa arki doonaa yaali taabkin inuu score ku jabiyay waxa rajaynaynaa musalsalada kale soo socday hitka in ayaguna jabin doonaan yaali taabkin score ku jabiyay hadaba daawada inta ayaan ugu talagalayna muuqaalkan uga hadlo waanigo saaxiibkiina Khalid wa salaamu alaykum